waxaan dadka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay maanta sii gartaan inay gumaysiga arrinta ka sii durugtay xabasho inay gaartay heer ay tiraahdo qof kastoo Soomaaliya hala dilo waxa weeye ereygii murtiyeed ku sheega ahaa ee ugu dambeeyay ee ay ku hadleen dhuuxiisa la dhuuxa waxa weeye xididada ha loo baxsho jiritaanka shacbiga Soomaaliyeed isaga fidnada Afrika ah shacbiga Soomaaliyeed ee xabashida ay gumaysataa waxay u dirayaan xornimadooda waa beenteed amxaaro iyo cidii ay kaashataaba xidid binu aadam lama siibi karo dalkooda iyaga leh haddii la siibi karo quwadihii ka waaweynaabaa siibi lahaa ummaddii ay jeclaayeen dalkooda iyagu inay degaan oo beddelaan oo ay barwaaqo ka gaari waaye waxa ugu dambeeyey Rhodesia ama Zimbabwe yaa ugu dambeeyey ayaan Smith yaa ka qaab daraa ka fool xumaa iyagiyo South Africa iskaashaday maxay u siibi waayeen xididada shacbiga Zimbabwe been weeye waxaan soconaynin weeye dhalanteed weeye riyo weeye aqli yari weeyaan maaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya oo qura arrintu waxay u socotaa waxa weeye shucuubta Soomaaliyeed meelay joogtaba aynu ku baabi'ino ma heli karaan iyagu ma birbay ku qafilan yihiin shucuubta Soomaaliyeed soo iyagu ibn aadam maaha soo qalabkoodii ma haysan karaan soo ma diriri karaan miyeyan u dhowaan karaynin inay eedaan waxa ay ku hadleen ama ay war murtiyeed ku sheega ay ku dhigteen arrintaas waxaan jeclahay intaas inaan iraado shacbiga waa daawateen fariinta iyo sidoo kale sida uu hadlayo madaxweynihii hore Allah u naxariistay Maxmed Siyaad Barre haddaba muuqaalkan la aksaar oo sheergaray wixii aragtiya oo la xiriira cadowtinimada ama xaarada adigu waxaad is leedahay hadalkan 40 sano ka hor jiray maanta ma la joogaa iyo aragtida aad ka qabto dawlad deegaanka iyo ama xaarada cadowtinimada Soomaalida qaybta hoose ayaad noogu reebi kartaa muuqaalkan la aksaar oo sheergaray sidoo kale janaalkana subscribe dheh mahadsanidin sida aad hordhac barnaamijkeena ku daawateen waxa ay cadowtinimada ama xaarada iyo Soomaalida u dhaxaysay soo bilaabatay wax ka badan 50 sano waxay ka dhigan tahay in ama xaaradu ay cadowtinimadeedu Soomaalida u qabto aysan maanta ahayn aysan shalay ahayn aysan daraad ahayn qof walba ogaan kara sida fariinta hordhac barnaamijkeena aad ku daawateen madaxweynihii hore Allah u naxariistay Maxmed Siyaad Barre sida uu kaga hadlay xabashida ama xaarada iyo damacooda Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in maanta Soomaalidu la dilo lana laayo sida hadda ay ku dhawaaqeenba labada qof ee ama xaarada ka tirsan ee wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Itoobiya oo kol hore u sheegay in Soomaalidu meesha lagu arko la joogto si lamida taliyaha ciidamada ee hogaaminaya dagaalada ninka la Dabala ayaa si lamida u sheegay in Soomaalidu meesha lagu arko lagu toogto labadaas nin oo xaarada ka soo jeedo iyo xaaladda maanta ka taagan jigjiga ee guud ahaan Soomaalida waxa ay ka tarjumaysaa fariintii uu reebay Allah u naxariistay Maxmed Siyaad Barre madaxweynihii hore ee Soomaaliya wax laga joogo hadda 50 sano ama 40 sano taas oo ka dhigan in kaalin muhiim ah ay ahayd fariintaasi markii la duubay Soomaalidu badankeed ma fahansana cadowtooyada ama xaarada hadda dawlad deegaanka waxa ka jira waa wax aan loo dul qaadan karin waa wax ka cabiraya fariinta maanta taagan maadaama aqliyadii laga wareegayo sida uu sheegay Siyaad Barre ama Maxmed Siyaad Barre Allah u naxariistay waxay rabeen ama xaaradu in shucuubta Soomaaliyeed la baabi'iyo si aqliyan iyo si awood ahba in loo baabi'iyo laakiin maanta waxay ka bilaabeen sheekada labadaba in la dilo Soomaalidii iyo in si aqliyan looga wareego meel kasta oo ay leeyihiin oo ay haystaan aragti ahaan ma la qabo ama qof qabto ma jirto in Soomaalida la badbaadiyo dhulkooda oo laga dhiciyo cadowga gumaystuhu ama xaarada waa dhibaatada ugu weyn ee Itoobiya Soomaalidu ka wajahayso sababtoo ah waxay rabaan inay la wareegaan dhulkii Soomaalida ee qaniga ah dawlad deegaanka hadda marka loo eego maamulka xitaa waxa ku jira dad ama xaara maamulka deegaanka waxa ku jiro dad ama xaara ah hal qof oo Soomaali ah ama xaarada markii loo eego deegaankooda maamulka ma aha iska dhaafe deegaanada iyo ganacsiga xitaa way ka yihiin 20% xitaa ma dham laakiin markii jigjiga loo eego ganacsiga iyo maamulka iyo deegaanka iyo dadka 50% hadaysan ka badnayn kama yara marka waxa wax soo jireyna oo ay Soomaalidu taqiina kol hore laakiin Soomaalida maanta ma fahansana Soomaalida nooleed kol hore way fahansaneed oo way ogeed cadowtooyada iyo dhibaatada xabashida ay lahayd ama xaaradu sida uu carabka ugu dhuftay madaxweyne Maxmed Siyaad Barre si lamida waxa taagan hadda caqabadaas tii lamid ahayd oo hadda Soomaalidu lagu doonayo
in lagu dhibaateeyo waad aragteen galbeedka city canfara la siiyey canfartu awood kuma dhama Soomaalida laakiin yaa garab siinayo ama xaarada ayaa ciidan iyo sidoo kale dhiiranaan la daba taagan oo ay rabteen Soomaalidu ay qaadato ama xaaradu waxay rabtaa marka in markii ay madaxweynaha noqoto Ethiopia madaxweynaha soo aadan ama ay jagada ugu sareysa qabsato in Soomaalida dhulkeeda si toos ah gacanteeda u galo oo ay la wareegto markaasna Soomaalidu wax u yaala ma jiro oo ay isdhiibayaan deegaanku iyagu ma laha wax u galana ma jirto marka caqabad ugu weyn ee taagan waa in Soomaalidii laga saaro dhibta hadda haysata waa in Soomaalidu ay fahmaan fariimaha iyo sidoo kale arimaha kale la xiriira in jigjiga iyo dawlad deegaanka iyo cadawtooyada shucuubta Ethiopia ay qabaan furmaha dagaalka iyadoo ay ka dagaalamayaan Soomaali 500 askari oo Soomaali ah ay difaacayaan dhulka ama xaarada ay la dagaalamayaan Tigray ayay ama xaaradu sii leedahay Soomaalidu waa Tigray hala joogto meesha lagu arko TPLF taageerta waa caqabad weyn adoo furmihii dagaalka ka dagaalamay oo Soomaali ah in Soomaalida la hala joogto la yiraahdo oo la yiraahdo Tigray taageeraan oo la yiraahdo TPLF jaajus u yihiin oo la yiraahdo TPLF u shaqeeyaan marka caqabadaas jirto marka Soomaalidu intooda badan wax ma fahmaan oo waa iska dhogshayaal mana jirto dawladii ku horeysay dawlad deegaanka Soomaalidu waad ogeedeen caqabadii ay Soomaalidu marisay meeshii ay Soomaalidu geysay iyo sidoo kale dhibtii loo geysay Soomaalida xabsiyadii lagu ciqaabay dhulkii laga xoogay dhulkii canfar loo saxiixada dhulkii la isku haystay candhuufo iyo garbiciisa iyo meelaha kale ee deegaanada galbeedka city ninka saxiixa waa madaxweynihii hore Cabdiilaya saxiixay oo si ama canfar oo inay leeyihiin ay dhulkooda ka tirsan u saxiixay maanta waad arkaysaa wuxuu ka dhaxlaayo isagu naftirkiisa maanta dunidu kuma noolaan karo si xor xitaa iska dhaafay familkiisa ama qaraabadiisa lama noolaan karo ama arki karo xabsi u dhex yaala intaas oo sano waa in ka badan 3 sano marka maanta Mustafa Cagjar isagu naftirkiisa taas in u dambeeyay laga yaabaa maadaama dhulkii Soomaaliyeed uu san cadow ka dhicinayn Soomaalidii cadow ka dhicinayn ama xaaradii uu si farsamaysan ama si caqliyeysan u siinayo dawlad deegaankii iyo dhulkii Soomaaliyeed lamana oga qaabka isagu wax wajahayo laakiin nin walba qadartiisu suugayayo wad arkaysaa meesha qofkii xun uu maro qofka xun oo kalena waa maraya qofka wanaagsan baa ka badbaaday marka Soomaalidu waa inay kacdaa waa inay ogaataa fariimaha bersamaadkii jiray waa in xaalka ama xaara la ogaadaa waa cadowga koowaad ama xaaro ee Soomaali leedahay waa cadowga ugu horeeyo oo ay Soomaali leedahay waa qofka waa qoomiyadda ugu horeysa rabta in Soomaali la baabiyo haddii ay wad maanta ama xaaro in soo qaadato tangiyo iyo wax diyaarado duqeeyo Soomaaliya ay ku baabiiso ay baabiin lahayd sida hadalka madaxweynaha ka muuqato oo ku leeyahay Xabashidu waxay rabeen in Soomaalida shacabkeeda la baabiyo la laayo oo aan hal laga reebin waana taas tan taagan maanta quwad gooniya ma laha Soomaalidu laakiin waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo waayahay aragtidaada waa inoo muhiim qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa si lamida muuqaalkan like saaro share galay tan iyo qaybta kale ee muuqaalkan nabadgelyo